بسم الله الرحمن الرحيم ساكا waxaan ku soo booqday xarunta guud ee Solta ee ka wakiilka warbaahinta dalka Soomaaliland waxaan u imiday xarigii ka bacdi sidii grip taagnaayeen ee mar walba ugu shaqeynayeen si la soo deyn lahaa aan xuriyadeeda u heli lahaa saakana waxaan leeyahay dawad ku mahadsantihiin hoggaanka Solta sidii grip taagnaayeen ee u doonayseen inaad xuriyadeeda helo waxaan kale halkan ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay si aad xuriyadeeda u heli lahaa بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا عبد القادر يو بدري كوساربا عبد القادر markii hore ku soo dhaweynaa xaruntaadii xarunta ururka saxaafadda Soomaaliland ee Solja mar labaad kana hawshan ka shaqeynayay diwaajibadna saarnaa bay ahayd inaan u doodno xuquuqda warbaahinta dadka xidhan dadka markaa la soo eedeeyo kuwa markaa inta hawada waa tan ka shaqeynayna markaa hadaad garatay asir bal nimanka xafiiskii ugu tag waad ku maasan tahay waxaan rajaynaynaa in xorriyadii iyo dadaalkii maanta aad hayso waan ku faraxsanahay inaad maanta xor tahay oo xorriyadaadii oo sharciga aad haysato sidoo kale waxaan diidanahay in wariyaasha si sharci darro loo xiro laga joojiyo goobihii ay ka shaqeyn lahaayeen ama shaqada ku wadanayeen wariyaashana waxaan ugu baaqaynaa in iyaguna ethics-ka iyo anshaxa iyo dhaqanka ay ilaaliyaan ay noqdaan mas'uuliyadda saaran ay ka shaqeeyaan markastana iyagu ay noqdaan dhibanayaasha ama dhibana sharci ha noqdo ama dhibana kale ha noqdo iyagu dadka dhibanayaasha inay noqdaan baan jecelnahay xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay fuliso ballanqaadkeedii ahaa inaan wariyaasha la iska xidhi doonin in loo soo mari doono wadada sharciga haddii tahay in waran loo soo goosto iyo in la dacweeyo maxkamadda laga dacweeyo oo kiiskiisu halka uu ka socdo laakiin muddo badan ay qaadato inay iska xidhnaadaan iyagoo markaa wax kiisoo markaa ballaarneen aan loo haynin marka aad iyo aad baad mahadsan tahay waa ku faraxsanahay inaad soo booqataa travel nimankii ka wardoon ee inta badan kula shaqeynayay waana kaaga mahadnaqaynaa aad baad mahadsantahay